السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا magacayga waa Baasha Cabdiqaadir Muuse. Channelka daawaneysana waa Baasha FX. Haddaa ku cusub tahay channelka waxa weeye subscribe saar. Haddaa horey u joogtana waxa weeye soo dhawow mar labaad. Insha Allah waxa weeye asxaabta aan iskala socono qolka Telegramka. Waxaan rabaa inaan waxa weeye soo duubo insha Allah falanqaynta suuqa marka koowaad. Marka labaadna inaan soo duubo insha Allah hadduu Ilaahay idmo. scalping strategy oo asagana aan ku balansanayn asbuucan suuqu waxa weeye waxaan rajeynayaa inuu leeyahay fursado badan oo laga faa'iideysan karo inkastoo waxa weeye lacagaha qaar ay neutral ay yihiin oo labada jihaba ay aadi karaan mararka qaarkood waxaa dhacda suuqu inuu ku tuso in uu mataqaanaa uu xoogaa ku khalkhaliyo oo kale markaasna aad istiraahday suuqan xaggee aadi karaa markaasoo kale waxaa loo baahan yahay neutral وهي سوق inaad waxa weeye suuqa aad u kaadisid chance aad siisid jihada saxda uu ku tusan aad ku tixgelisid sometimes waxaa dhacda in uu ku siiyo jihada waxa weeye saxsan oo aad fahmi kadib oo garan kadib oo aadna waxa weeye fursad jidha ka faa'iideysan kadib marka mar walba waxaa jira waxa weeye suuqu wuxuu ku tusan ku tixgelisid balse waxa weeye waxa aad u maleynaysid aad ku tixgelin insha Allah waxa weeye waxaan ku bilaabayaa aanan hadalka sii badinayn lacagta waxa weeye horta matafkan isla fiirinayna waxa weeye insha Allah waxaan fiirinaynaa lacagaha waxa weeye fursadaha leh dhowr lacagood baa waxa weeye fursad iga muuqdaan lacagta euro fursad baa iga muuqata sidoo kale lacagta JPP fursad baa iga muuqata sidoo kale JPY fursad baa ka muuqata waxa kale yado marka lacagahaas euro JPP iyo JPY xogaa fursadaha moodaan ay ka muuqdaan marka waxa loo baahan yahay marka matafka joogtid lacagta waxa weeye marka fursadda bixinaysa inaad ka faa'iideysatid midda markaa is diyaarinaysana waxa weeye aad balaankaaga labaad ka dhigatid laakiin lacagta markaa is diyaarinaysa lacagta galaysid oo aad is leedahay waxa weeye mataf markaa fiirisid lacagta kuu soo baxda lacagaha aad isha goonida aad ku hayn doonto waa inay noqdaan lacagaha reversalka u dhow ama lacagaha reversalka jooga ama lacag continuation ku jira laakiin lacag iska sii daadanayso aan meel waxa weeye aan dhoweyn oo intay correction sii samayso darab sii daadanayso markaas kale waxa loo baahan yahay lacagta inaad u kaadisid laakiin lacagta markaa fursadda samaynaysa inaad ka faa'iideysid hadhow taasna markii waxa weeye fursad yeelata fursadeeda ka faa'iideysid insha Allah waxa weeye waxaan ku bilaabayaa lacagta horta mar walba waxa loo baahan yahay inaad ku bilowdo lacagta DXY maxay sameynaysaa markasta marka waxa analysis gareynaysa waxa loo baahan yahay inaad ku bilowdo lacagta DXY maxay sameynaysaa marka haddii matafka aad agtid oo kale oo ma garanaysaa aad DXY oo kale aad raadisid waxa laga yaabaa USD baa ku soo qabanaysa marka xawaa taas matafka waxa ka qurux badan trading view inaad ka fiirisid lacagta dollarka haddii aan fiiriyo wuxuu dhan tirtiro sababta in leeyahay suuqu mar buu wuxuu noqon karaa neutral oo hadda halkan ba waxaan ku fiirinaynaa lacagta dollarka ah waxyaalaha macquulka waa maxay laba dhanba dollarku uu aadi karaa inkastoo short termka asaga la isku hubo oo short term sell yar uu ku jiro oo taas waxa weeye ay u badan tahay laakiin macnaha marka laga hadlayo dollarka fursadda meesha uu aadi karo oo looga faa'iideysan karo waxa weeye waa maxay horta halka waa level hoose waa level low ah halkan waa level high dollarku waxa weeye wuxuu ku soo socday muddooyinka u dambeeyayba jihada sellka ah marka zoneska inaad suuqa waxa weeye zoneska aad fahmaysidna waxa weeye aad bay muhiim u tahay hadda halkan zone baa dollarka waxa weeye hadda reject laga siiyey zone baa reject laga siiyey laakiin markaa fiirisid dollarka waxaan sugaynay in uu waxa weeye noo sameeyo maadaama uu kusoo socday impulsive correction impulsive waxaan ay yihiin corrective kadibna waxa weeye uu noo soo buuxiyo areada oo ah double bottom kadibna waxa weeye uu buy ku aado balse waxa kaliya maxaa sidoo kale halkan waxaa ka muuqda candles waxa weeye candleska haddaa fiirisid kala suuqa aad si aad u akhrisid waxaa ku muuqanaya candle waxa weeye in momentum buy ah meesha ka jiro ayna macquul tahay suuqa inuu waxa weeye saa ku sii socdo impulse uu sameeyay kadibna halka correction uu galo kadib meesha ay noqoto waxa weeye head and shoulder ay noqoto waa sida macquulka ah ayna u badan tahay inuu dollarku sameeyo sidoo kale ayadana maxaa macquula markaas oo kale waa marka aan leeyahay suuqu waxa weeye neutral buu ku tusi karaa halkan horta uu ka laaban karaa halka basel uu ku aadi karaa sidoo kale ayadana maxaa ujeedaa inay macquul tahay halkan in uu ka imaan karo waxa weeye head and shoulder markaas oo kale weeye marka loo baahan yahay inaad ka fakadid oo aad maskax adeegsatid markaas oo kale maxaa loo baahan yahay sidoo kale haddaa fiirisid meesha waxaa ka muuqda in trend line daily ah la cunay daily time frame trend line ah in la jabiyey baa ujeedaa
marka trend line daily time frame sidoo kale halka 1 iyo 2 iyo 3 ay ka dhacday waxaan ay yihiin patternka meesha ka muuqda uu yahay failing wedge ba ku marka patterns-ka waxaan filayaa waa fahamsantihiin badankiinu marka maxaa meeshan ku muuqda marka lower time frame marka tagtid kala weekly-gan jooga weekly-ga waxa ujeedaa in ay tahay bullish pressure inuu meeshan ka jiro oo macquul ay tahay in waxa weeye suuqa sii socdo ama in la soo celiyo waa wax macquul ah laakiin hadda maxaa ujeedaa daily trend line baa la jibiyay daily trend line haddii la jibiyay maxaa macquul ah waxaa macquul ah suuqa waxa weeye inuu saabay ku sii aado waxaan tegaynaa daily time frame-ka maxaa macquul ah asna daily time frame-ka trend line-ka laba hab baa loo jibiyaa trend line-ka mar waxaa dhacda in loo jibiyo qaab awood leh in loo jibiyo oo ah suuqu inuu si awood leh ku jibiyo kadibna waxa weeye ku siiyo kadib retracement uu ku siiyo kadibna asii qaado laakiin hadda halkaas waxa weeye ereyada dollarka laga reject gareeyay waxaa muuqata in dollarku halka uu ka soo laaban karo maxaa yeelay meesha qaab waxaa lagu tegay 1 iyo 2 iyo 3 1 iyo 2 iyo 3 plus middle section ujeeda inkastoo dollarku waayahan awood leeyahay oo lacag aad waxa weeye u sareyso waa macquul in meesha levelka la sii jabiyo waxay retracement inta la sameeyay lagu sii jabiyo waa macquul kadibna halkaas retest lagu sameeyo kadibna head and shoulder-ka inay sheegayay meesha ka dhaco wax macquul marka fursadda waa maxay trend line-ka haddaan naga dhalido fursadda markaa taagan haddaan fiirino ayada waan sheegnay in daily trend line uu jabay daily trend line hadduu mar jabayba waxa weeye suuqa inuu sii socdo waa macquul laakiin daily trend line-ka qaab waxaa loo jibiyay trend line-ka marka la jibinayo mar waxaa dhaca trend line-ku saa markuu ku yahay oo kale suuqu in mataqaanaa trend line-kaas soo taabanayay trend line-ka inuu jabiyo suuqi marka qaab suuqu hadduu ku jabiyo impulsive ah retracement uu sameeyo suuqu marka waa in uu sii soconayo buy ku sii soconayo way cadda laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda in trend line-ka loo jabiyo qaab corrective oo ah saan oo kale qaab corrective waxa weeye trend line-ka loo jabiyo marka waxa dhacaysaa suuqu waa buy may involving baa sameynaya trend line-kaas meelahan oo kale iska geenaya suuq meesha wuxuu ka sameynaya levelka uu suuqu taagan yahay oo kale baa fiirinaya marka halkaan oo kale level baa laga yaabaa inay ku tahay kadib suuqu waxa weeye wuxuu ku jiraa sii daadanaya dhawaa leedahay trend line baa la jibiyay waayo suuq trend line-kii village breakout u sameeyay qaabka loo jibiya waxay ahayd qaab corrective marka taasna inaad fahansantihiin baan filaya badankiinu ardada waxa weeye advanced-ga way fahansan yihiin marka qaab halkan waxaa lagu yimid 1 iyo 2 iyo 3 ah 1 iyo 2 iyo 3 marka waxaa macquula dollarka waxa weeye in la soo celiyo waa macquul sidoo kale waxaa macquula dollarka in waxa weeye inta xoogaa yar la soo celiyo in waxa weeye kadib uu buy aado marka fursadda dollarka kaga faa'iideysanaysaan anigu waxaan dhihi lahaa maadaama waxa continuation ay u yihiin laga yaabo in la soo dhaco sidoo kalena waa macquul maadaama dollarku ayaan awood u lahaa in waxa weeye uu garanaysaa uu soo noqon waayo marka 4 hour level oo kale hadda meesha ka raastid halkan waa 4 hour level wey marka waxa weeye anigu waxaan dhihi lahaa qofkii halkaas seel ka qaadanaya meesha short position ka soo qaadanaya meelahana waxa weeye stop loss-kiisa dhiganaya in uu targetkiisa koowaad u ka dhigto meelahan ilaa halka uu ka dhigto targetkiisa koowaad meelahaas oo kale uu ka dhigto kadib halka marka la yimaado waxa weeye faa'iidadiisa uu ka xirto hadduu laba trade kaga jiro inuu mid ka xirto maadaama level uu yahay adag waxa weeye dollarkuna waxa weeye uu ku sii socdo maadaama waxaan ay yihiin impulsive in halka correction uu ku yimaado kadibna waxa weeye saa u buy ku aado waa sida macquulka ah sidoo kalena waa macquul waxa weeye inuu sii jabiyo marka waxay ku xiran tahay anigu waxaan dhihi lahaa waa neutral weeye waa macquul dollarku maadaama awood leeyahay inuu retracement yar sameeyo saa kusii jabiyo levelkaas hadhowna head and shoulder-ka inii sheegayo daily time frame-ka uu ixtiraamo sidoo kalena waa macquul in waxa weeye uu ixtiraamo pattern-ka ah 1 iyo 2 iyo 3-ga kadibna waxa weeye saa kusii jabiyo taa waxay ku xiran tahay dollarka iyo awoodiisa haddii dollarku waxa weeye awood uu yeesho pattern-ka ma ixtiraamayo balse haddii awoodiisu ay daciifto oo ixtiraamin doonaa waxa weeye pattern-kan oo ah 1 iyo 2 iyo 3-ga marka inaad fahanteen baan filayaa levelkan marka ha kuu noqdo fast target insha Allah haddii halka aan uga gudbo waxaan fiirin doonaa lacagta DXY-ga waxaan ku hormaraynaa lacagta DXY-ga fursadaha ka bannaan lacagaha waxa weeye mataqaanaa lacagaha dollarka
marka levelka inii sheegayo waa kan 4 hour ka hadda inii sheegayo 1 iyo 2 iyo 3 kan waa level suuqana u jeedaan uptrend way caadi ah marka levelkaas qasab kulay suuqa ku hakanaya inuu ka laabto waa macquul halka inay noqoto first target ilaa waxa weeye second targetna waxa weeye meelahaas inay noqon ka dhacdo trend line-kaas inay noqon ka dhacdo second target third target waxay noqon ka dhacdo targetka saddexaad ilaa halkaas marka insha Allah waxaan rajeynayaa qof walba inuu waxa weeye ka faa'iideysto laakiin targetka meelahaas ku raacno insha Allah taa waxaan ku xijinayaa lacagaha dollarka ama fiirinayaa la xiriira waxaan fiirinayaa lacagta euro USD euro USD waa maxay fursadda ka banaan euro USD fursadda ka banaan waxa weeye daily time frame ka hadaan tago waxa u jeedaan daily time frame waxa u jeedaan in lacagta waxa weeye euro USD ay sameynayso wixii hore ay soo sameysay oo wixii hore u sameysay waa maxay haddaad fiirisid baatankan oo kale intii oo kale waxa weeye inay meesha ka sameynayso macquulna ay tahay waxa weeye in ay mar labaad bay aado sida halkaanba ka dhacday in ay waxa weeye saab ay ku aado balse sidoo kale waxa inii sheegay in suuqu hadda uu yahay xaaladdu hadda uu ku sugan yahay ay tahay neutral oo labada dhanba uu aadi karo sababtoo ah waxa weeye dollarka waxaan niri wuxuu sameyn karaa head and shoulder inverse head and shoulder sidoo kale halkan waxaa ka muuqata in uu sameyn karo euro USD head and shoulderka caadiga ah oo ujeedaan in ay soo dhici karto ilaa halkaa la keeni karo kadibna waxa weeye garab kale lagu celin karo kadibna lasoo daadan karo marka suuq markaan kale waa neutral waxaa macquula inuu meesha ka laabto oo baatanka uu ixtiraamo sidoo kale waxa weeye waxa macquula in uu waxa weeye meesha la soo jebiyo oo saa uu suuq ku sii socdo waa macquul marka waxaan in rajeynayaa in qof walba uu ka taxadiro marka waa inii sheegayaa sida dollarka oo kale ah euro USD waxa weeye qaabka aan ka sugayna inay sameyso waxa weeye halkan waxa ujeedaan in suuqu ka sameynayo 1 iyo 2 iyo 3 1 iyo 2 iyo 3 aniga muhiimad ima sameynayo haddii meesha aysan ahayn meel level ah levelka igu soo dhawaa halkee levelka igu soo dhawaa waxay noqonaysaa areadan oo ah order blocker ama zonekan zonekan waxa ujeedaa inuu yahay zone aad u adag inuu yahay marka waxaan sameynayaa 1 iyo 2 iyo 3 maadaama halka ay tahay 1 iyo 2 iyo 3 ay tahay 3gan in waxa weeye suuq meeshaas ba laftigeeda halkan areadan buu ka laaban karo areadan hadda zonekii waa la tabtay already waa la hit gareeyay marka in zonekaas suuq ka laabto oo saa u bay ku sii aado waa mid macquulka ah wataa anoo ka duulayna haddaan 4 hour ka fiirino maxaa macquula oo halka ujeedaa 4 hour ka waxa ujeedaa meeshaan haddaa fiirisid areadan 4 hour maxaa ka sugayaa 4 hour ka areadan aan ka sugayo waxa weeye in suuqa halka reverse laga siiyo waxa weeye saa u bay ku aado marka laakiin sida dollarka ayni sheegayay first targetkan waa inuu noqdaa waa inuu noqdaa sida dollarka oo kale meesha first targetka waa inuu noqdaa hadda waxa weeye sell bay u qaadanaysa lacagtaas maxaa macquula sida dollarka ayni sheegayay oo levelka retestiga ugu sameeyay in halkan oo kale ayadana retest lagu sameeyo kadibna euro USD ay sii daato waa macquul marka first targetkaagu waxa weeye ilaa halkaa noqdo waxa weeye haddii kale meesha la jibiyo retest lagu sameeyo waxa weeye waa la sii soconaya ilaa halkaa second targetkaagu noqon karaa marka lacagta waxa ka macquula sidaas ka macquula in euro USD waxa weeye abay uga faa'iideystaan ilaa waxa weeye areadaas ilaa long position in uga faa'iideystaan halkaas position ilaa halkaa uga faa'iideystaan waxa weeye stop loss kiina 30 bibo ka dhigataan hadhowna waxa weeye haddii meesha la jabiyo waxa weeye tasir lagu sameeyo kadibna aad mar labaad ka faa'iideystid ama in waxa weeye aad laba trade ka gashid mid markii halka lagu yimaado ka xiratid midna waxa weeye ACDs labada waa macquul marka insha Allah wax ka rajeynaynaa lacagta euro USD fursad buy ah labadaba waa macquul suuq waxa weeye mar walba waxa loo baahan yahay inaad waxa weeye aad marka lacag gashid oo kala aad mid ka xiratid midna waxa weeye aad iska sidaysid marka waxaan rajeynayaa inaad taafanteen euro USD waxa iyada macquula lacagta GBP USD ayada wax macquula laba possibility meesha way ku jiraan daily time frame ka hadaan fiiriyo waxa macquula daily time frame ka hadda lacagtan waxay ku jirtaa trend line mar walba waxa weeye in aad iska taqaana iska intibid ma waa inaad iska intibid trend line ka marka meesha hadda waxa weeye level baa la raadsada mar walba
suuq uu buy ka aadi karo ama sell ka aadi karo levelkan waa level aad u adag suuq uu mar buy ka aaday mar labaad baa lagu soo socdaa qaab 1 iyo 2 iyo 3 ayaa lagu yimid waa macquul in buy la aado sidoo kalena maxaa macquula in waxa weeye la soo jebiyo kadib lagu laabto kadibna ay meesha ka noqoto head and shoulder ay noqoto waa mid ay sheegaya hadda dollarku asna uu sameyn karo marka waxa weeye lacagahan dhow isku structure weeye suuqna wuxuu u muuqdaa waan ku yiri neutral labada dhan buu aadi karaa marka anoo kalena waxaa loo baahan yahay suuq inaad chance siisid si aan waxa weeye meesha asagu markaa uu aad uga faa'iidaystid marka meeshan levelkan waxa ujeedaan waa level 4 hour level hataa waa ujeedaan si qurux badan waa daily level weeye reject baa loo sameeyay ujeedaan reject aad u qurux badan baa meesha ka dhacday marka waxa macquul ah in waxa kale yado suuqa oo saabay ku aado oo ilaa waxa weeye ilaa halka saabay ku aado sidoo kalena waa inay sheego waxaan ku yiri dollarku maadaama uu labada dhanba aadi karo GBP USD ayadana waxa ka macquul ah halka horta buyga fursadda buyga qaabka lagu faa'iideysan karaa ta fiirino fursadda buyga waxa lagu faa'iideysan karaa hal midaas oo ah waxa weeye in lacagtan ay samayso halkan zoonka ay jibiso kadibna waxa weeye test ay ku siiso kadibna waxa weeye asaab ay uga faa'iideysatay taas waa mid waxa weeye macquulka ah sidoo kale haddii 15 minutes kala aan fiiriyo qaabka fursadda buyga lagu faa'iideysan karo waa maxay qaabka fursadda buyga lagu faa'iideysan karo waxa weeye markii halkan areadan oo kale meeshan oo kale la jibiyo halkan markii loo jibiyo trend line kaasna la jibiyo sidoo kale zoonka la jibiyo test lagu sameeyo waxa weeye fursad buy ah oo qurux badan baa ka faa'iideysan kartaan haddii kale waxa macquul ah waxa macquul ah suuq waxa fiican laba waji inaad u fiirisid wajigu ku tusamahane wajiga kale aad ku trade garaysid sidoo kale waxa macquul ah mid kale oo ah in suuq uu sameeyo head and shoulder kan inuu ixtiraamo head and shoulder ka laftigiisa meesha ku jira inuu ixtiraamo oo maasha hadda waxa weeye test lagu sameynayo waa xagee meesha testiga lagu sameynayo waxa weeye waa neckline ka weeye in suuq waxa weeye xogaa yar buy aado inuu waxa weeye meesha uu test ku sameeyo kadibna waxa weeye soo daato waa macquul waa sababta in la yahay suuq wuxuu ku jiraa neutral markaas oo kale waxa loo baahan yahay in aad ka digtoonaatid baa loo baahan yahay haddii kale sidoo mid kalena waa sameyn kartaa fursadda buyga shuwarka markii halka la jibiyo ayaad ka faa'iideysan kartaa fursadda buyga markalena waa ka faa'iideysan kartaa oo haddii meesha la jibiyo marka haddii meesha la jibiyo zoonkaasna la jibiyo trend line plus zone baa la jibiyo trend line plus zone testiga aad ka heshid waa qaadan kartaa waa ka faa'iideysan kartaa haddii kale haddii aad seel uga faa'iideysanaysid waa in waxa weeye suuq meeshan soo kala hirgaraya ku laabta kadib waxa weeye fursad baa fursad seel aad ka faa'iideysta marka labada dhanba waa macquul meesha in lagu laabto kadibna waxa laga soo daato ama haddii uu noo jibiyo meesha suuq noo jibiyo testiga waxa weeye aan ka faa'iideysan marka GBP USD waa isla fahnay baan filayaa labadaasba waa ka macquul adoo market structure yaqaana market structure wax ku analyze garanaya haddana waxa weeye suuqa in aad jihada ugu soo ku trade garaysidna waa muhiim kulliga haddaan fiirino waxa weeye intii lacagtan buyerka buyerada mid kamid ah buyerada ugu jecelahay inaan trade garayo kulli waxna waxa weeye waa lacag mar walba waxa weeye suuq waxa uga baahan tahay ku siinaysa sayni sheegay tabta dollarku ma taqaanaa ku jiro ay lacagtan ku jira dollarku waxa iri waa macquul in waxa weeye uu buy aado sidoo kale inuu sell aadana waa macquul oo 1 iyo 2 iyo 3 uu sameeynaya dollarku sidoo kale lacagtan waxay sameynaysaa 1 iyo 2 iyo 3 bay sameynaysaa dollarku wuxuu sameynayaa 1 iyo 2 iyo 3 uu ku aadi karo sell sidoo kale golli wuxuu sameynayaa 1 iyo 2 iyo 3 uu ku aadi karo buy markaas oo kale maxaa loo baahan yahay markaas oo kale waxa loo baahan yahay in aad waxa weeye aad ka taxadidid maadaama sidoo kale golli uu sell aadi karo oo marka uu sameyn karo inta la soo jebiyo areadan lagu laabto kadibna waxay noqonayso sidoo kale head and shoulder meesha uu ka dhacayo marka suuq waa neutral meesha uu joogo loogama go'aan qaadan karo waxay ku xiran tahay in golligu buy aado in lacagta dollarka ay sell soo aado lacagta dollarkan inay sell soo aado way u badan tahay sababta oo ah waxay ugu badan tahay package-kii hadda xirmadii ugu dambeysay oo waxa weeye la approve gareeyay marka haddii suuqa lacag badan ay soo gasho oo waxa weeye lacag badan oo dollar suuqa la soo geliyo lacagta dollarka way qiimo dhacaysaa marka waxay noqonaysaa suuqa in sell wali ay aado
تاينا سلفانية وفيليا يقول لي هذا level كاس وشوجو level أدو أذي level كسوت هذا كروسيل كده مركز زون كلا كانوا فرصة قروح بدن أدو بدن وحوي بايلو في إيدي سنكر ما دام والسمين أيوه حتى نسلف فيرنا حتى حنقول نسكت الليلو نسلف فيرنا والسمين أياه قل لي وحو السمين أياه وحو شوجا level أدو أذك level aad u adag ayuu golli joogaa marka levelka inuu soo dhameystiro golli way u badan tahay levelka weli lama soo dhameystirin haddii daily time frame ka aan fiirino levelkaas qaab noocay ah ayaa lagu imaanayaa levelka waxaa loogu soo socdaa qaab waxaa loogu soo socdaa 1 iyo 2 iyo 3 ah haddaan si fiican u sawirno 1 iyo 2 iyo 3 gaas si fiican looma taabo weli lama dhameystirin marka trailing aad u qurux badan ku jira trailing kaas macquul waxa weey channelka uu ku jiro inuu saabay ku aado channelka hadda uu sameeyay waxa moodaa inuu yahay channel waxa weey suuqa uu bay ku aadi karo laakiin maadaama levelkii weli aan la hit garayn 4 hour ko waxa ku muuqdo 4 hour kala daafis 4 hour waxa fiirsado hadda fiirisid waxa ku muuqdo already ba kulligu inuu bilaabay inuu area aan suugaynay oo halkaan ah oo momentum-ka ku lumiyo taas oo ka dhigan in waxa weey suuqaas uu magaranaysaa uu saabay ku aadi karo in area waxa weey naloo soo dhameystiro kadibna naloo sameeyo 1 iyo 2 iyo 3 1 iyo 2 iyo 3 iyo waliba mid afraad 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 afar jeer meesha in la yimaado sidaasna ay ku noqoto waxa weey fursad aad u badan balse aanuna hilmaamay mar walba levelka suuqa uu marayo halkan waxay tahay waa level aad u adag levelkan waa level waxa weey suuqa marar badan lagu celcelin karo laakiin marka abayga la rabay inuu qaato waa maxay waa marka levelka la jabiyo kadibna waxa weey test yeesho waa clear buy oo aad kulliga haysan ka dhig kuma naambi sidoo kale maxaa qaydan macquula in area-dan la keeno halka markii la keenana waxa weey kulliga waxa haysan ka dhaa asagana buy waxa weey aad u qurux badan ilaa intaas marka labada fursad haddii halka la jabiyo test-ka ka faa'iideyso sidoo kale haddii halkan lagu yimaado zone kaasna fursada ka faa'iideyso labada fursadoodba kulliga way ka muuqataa kulliga waxa rajaynaynaa asbuucan in buy qurux badan uga faa'iideyso haddaan ku xijiyo halka haddaan lacagaha USD-da uga soo gudbo waxaan fiirin doonaa aan isla eegi doonaa lacagta la yiraahdo lacagaha euro-da markaa lacagta euro-da waxa ahaynaa mataf waxaan soo fiirinaa waa maxay euro waxa ay sameynayso haddaan dhilida waxaan oo dhan euro waxaan filayaa inaan ku dheereeyay 10ka falanqaynta laakiin waxa weeye mar walba suuqa in la kala dhigo adinkana cilmi ay noqoto waa muhiim ah anuna hadda qaabka aan waxaan kugu falanqaynayo waa qaabka mar walba waxa weeye suuqa aan falanqaysto fursadaha aan uga faa'iideysto haddii mar walba levelka aan fiirisid levelkan waa level aad u adag mar walba levelka waa muhiim levelka ma la joogaa levelkaas lama joogo may laakiinse sidoo kale waxa macquul ah levelka hadda suuqa meesha u marayo inuu ka laabto maadaama ay tahay meeshan maadaama halkan ay tahay double bottom ka dhifi karo marka 1 iyo 2 iyo 3 ga waxa muddo wali inaan la hit garayn marka waa macquul in 1 iyo 2 iyo 3 ga la hit gareeyo sidoo kale waxa macquul ah in suuqa halkan uu ixtiraamo oo ah 1 iyo 2 iyo 3 ga kale inuu ixtiraamo suuqa halkan wuxuu ka sameeyay 1 iyo 2 iyo 3 uu ka sameeyay uu jabiyay laakiin rejection uu sameeyay marka waxay u badan tahay double bottom ka inuu sameeyo marka haddii suuqa waxa weeye double bottom kan uu sameeyo inuu saabay ku aado waa macquul sidoo kale maxaa macquula in suuqu soo jabiyo meeshaas trailing-ka uu yimaado kadibna waxa weeye saa uu bay ku aado marka waxaan rajaynayaa labada dhanba inay uga faa'iideystaan insha Allah haddii la hadno haddaan fiirino marka lacagta euro-da fursadda ka soo socota waa maxay fursad waxay u eg tahay buy inay ka soo socoto meeshaas maxaa yeelay meesha aan laftigeeda bartaan halkan double bottom-ka haddii la yimaado fursad kale oo waxa weeye buy ah meesha waa macquul maadaama iyada laftigeeda loogu soo socdo meeshaas 1 iyo 2 iyo 3 1 iyo 2 iyo 3 baa meesha loogu soo socdaa marka in fursadda buy-ga ka faa'iideystaan waan rajaynayaa insha Allah sidoo kale
maxaa macquul ah in la jebiyo oo levelka la yimaado 1 iyo 2 iyo 3 ga weyn soo dhameystiro kadibna waxa weeye sample lagu aado waxaan fiirin doonaa lower time frame ka 1 hour kan fiirin doonaa 1 hour kan maxaa u jeedaan 1 hour kan waxa u jeednaa meeshan in ugu imaanayo halkan 1 iyo 2 ay ka dhacday 1 iyo 2 ay ka dhacday markaasna waxa weeye meeshaas la samayn karo in area la imaanayo 3 ga la dhameystiro in waxa weeye sample lagu aado say u badan tahay marka lacagaha yuurada anagoo buyer ka sugayna waxaan fiirin doonaa euro buyers waxaan fiirin doonaa lacagta euro AUD euro buyers ayagoo dhan maadaama waqtigu nahayo insha Allah waxaan rajeynayaa in lacagahaas oo dhan ka wada faa'iidaystaan euro AUD ujeedaan level adag bay soo hit garaysay levelka waa level aad u adag levelkaas ay joogtaa way hit garaysay daily time frame ka hadda ujeedaan waxa weeye in areadaas lagu yimid in meeshaan lagu yimid trend line waxa weeye qurux badan in meeshaan lagu yimid trend line kaas in ay tahay laftigeeda 1 iyo 2 iyo 3 meeshaas in lagu yimid kana waxa weeye trend line kale uu ka dhacay trend line kale laftigiisa waxa weeye laga celiyay marka lacagtan waxay u badan tahay in ay buy aadayso sababtoo ah markaa fiirisid oo kale 4 hour ka kale markaa fiirisid impulse baa meesha ka dhacay suuqa hadda wuxuu ku jiraa waa maxay correction buu ku jiraa correctionka see lagu faa'iideysan karaa correctionka suuqa markuu impulse sameeyay suuqa wuxuu sameeyay impulse suuqa wuxuu sameeyay impulse uu meesha ka sameeyay marka maadaama waxa weeye suuqa halka uu ka sameeyay impulse uu ka sameeyay kanalkii ugu horeeyay oo rejection halkan ka sameeyay shaqada meeshan ka dhacay kanalkan wuxuu ahaa kanal ka sameeyay rejection hadda ka aragtay rejection awood lagu sameeyay lower time frame marka tigtid oo kale haddana suuqi meesha ugu horeeyay rejection-ka ugu horeeya oo dhacay rejection-ka ugu horeeya oo dhacay ayaa suuq ku soo laabtay marar badan marka meeshaan kale waxay u badan tahay in xogaa saa loo jibin doono maadaama waxaan impulsive iyo correction ay yihiin in wax yar saa madax looga baxo kadibna waxa weeye meelahan oo kale waxa weeye suuqu markaa buy ka aado iyadoo areadan la clear gareynayo meeshaan ayaa la rabaa dad badan oo halkan ka buy gareyn lahaa zonka in laga saaro kadibna waxa weeye suuqu jihadiisa xasaneed u aado marka halkaas baatankaas ayaa ka soo socda insha Allah waxa weeye ilgooniyo u lahaw haddii kale ayadana maxaa macquula in levelkaas double bottomka hoose la yimaado kadibna waxa weeye saa buy lagu aado balse goorma adiga buy gareynaysa markii waxa weeye levelka hoose loo jabiyo mar labaad dib loo soo jabiyo testiga lagu sameeyay kana rejection ah heshid then take it buy waa intaas waxa weeye suuqu haddii kalena haddii double bottomka hoose la yimaado waxa weeye ka faa'iidayso marka lacagaha yuurada dhan waa saas insha Allah in ku daalin mayo waxaan filayaa lacagaha yuurada dhan ka wada faa'iidaystaan lacagtan oo kale hadda impulse ku jiraa waxa fursad leh tan oo kale hadda euro ka dhiga muuqdaan lacagahan kale wallahi meel waxay joogtaa area adag bay joogtaa lacagtan mid kamid ah lacagaha ku jeclahay waxa weeye meelahan oo kale reversalka lacagahan ka qaato lacag soo daashay lacagtu markay soo daasho area 1 iyo 2 iyo 3 baa hadda ku joogtaa meesha kastoo 1 iyo 2 iyo 3 ga xoogaa ay waxa weeye ay runtay halkan oo kale haddaa samaysid evolving haddaa samaysid oo kale meelahan oo kale aad geysid 1 iyo 2 iyo 3 gaas ay samaynayso macquul macquul marka halka isha ku haya lacagtan waxa weeye waa clear buy insha Allah laakiin mar walba waxa weeye 4 hour level iska ilaali waa maxay 4 hour level ku waxyaala ugu daran weeye suuq maanta uu ku weelinayo levelkaas targetka ka dhigo koobaad marka insha Allah yuuradan waxa weeye firiyaa in lacagaha yuurada ka wada faa'iideysan doontaan waxaan ku xijinayaa lacagaha JPY-da JPY index maxay sameynaysaa JPY index waxay sameynaysaa waxay joogtaa area adag double bottom bay joogtaa waxay u badan tahay in ay buy ka aadayso marka
gormaa bay garanaysaa double bottom kan markii la yimaado halka markii la yimaado kale oo inta la soo dhaco bay garan ka dhaha hadii kalena gormaa bay garan ka dhaha waxa bay garanaysaa markii zone-ka la jabiyo waa zone aad u adag kadibna akeeshi test marka maxaa la jabiyay trend line plus zone kadibna waxa weeye saas baa lagu aadayaa marka rajeenaya inaan ku dheereeyay aad inuu ku dheereeyay videogan inuu dheeraado ma rabo lacagta JPY-da fursadda bayga ama ka sugaynaa in tasigan loo sameeyo ama in meeshan la yimaado erayadan kadibna waxa weeye aan fursad bay aan ka helo lacagaha JPY-da aan fiirinayaa ugu hormaro lacagta AUD/JPY AUD/JPY weekly time frame oo kala haddaan fiiriyo maxaa ku muuqda weekly time frame waxay joogtaa lacagtan meel adag bay joogtaa meel high zone aad u adag bay joogtaa daily time frame ka haddaa fiirisid daily time frame ka trend line-ka daily time frame waa muhiim mar walba maadaama suuqa aragto inaad fursad ka baaratid aad buu muhiim yahay lacagtan weli structure-keedu waa buy laakiin anigu waxaan ka sugayaa fursad sell ah marka erayadan zone-kan waa zone laga celiyay aad waxa weeye zone u adag weeye oo laga celiyay 4 hour-ka imaanaya 4 hour-kan waxaan fiirinayaa suuqa halkan muxuu ka sameynayaa suuqa 4 hour-ka markaa saa u akhrido kale baatanka aad akhrid suuqa meesha uu ka tegay imbalance buu ka sameeyay waxa uu ku jira waxa maxay correction inuu saabay ku aado waa macquul sidoo kale maxaa macquul ah sidoo kale waxa macquul ah maadaama suuqa halkan uu ka soo sameeyay imbalance awood leh waxaan inay noqdaan correction kadibna waxa weeye saa ay ku soo daataan marka waxaan fiirin doonaa insha Allah 1 hour time frame-ka 1 hour time frame-ka waxaa muuqata lacagta in ay aadi karto waxa weeye sell maadaama imbalance awood loo soo dhacay sellkaas ay ku aadaysaa maadaama JPY aan ka sugaynaa fursad buy ah JPY tan maxaan ka sugaynaa fursad sell ah marka waxa weeye 1 iyo 2 lacagta way samaysay waxaan waxa weeye waa middle section in waxa weeye trigger la tago kadibna uu meesha ka dhaco 1 iyo 2 iyo waxa weeye 3 kadibna all the way down in waxa weeye lacagta soo aado hadii kalena hadii aad aragtid in lacagta aggressive ay ku socoto awood ay ku socoto kana meesha waxay u baahan in la jabiyo kor la sii aado baatanka inay sheegay markii aho imbalance price correction kaasna ay ixtiraamto marka waxa weeye fiir gaar ah u lahaada meeshaas waxa weeye rejection awood leh haduu ka dhaco insha Allah waxa weeye sellkaas waa ka soo faa'iideysan kartaa maadaama JPY laga yaabo inay wax yar sell aado waxa weeye tan inay wax yar bay aado kadib ay soo dhacdo marka waxaan ku xijinayaa lacagaha JPY-da kuwooda waxa weeye ugu muhiimsan ka JPY oo kale haddaan fiirino ka JPY-na maxaa ka macquul ah ka JPY ayadana waxaa ka macquul ah daily time frame-ka haddaan fiirino waxay ku socotaa si awood leh weli waxaa moodaa inay meel adag taagan tahay si noo mara erayadan waxa weeye waa zone aad u adag meel target ku noqon karta meelaha zoneska waxyaalaha ugu jeclaa ugu suuqa inaan zoneska calaamadsado sidoo kale 4 hour zone-ka waa muhiim labadaas ugu muhiimsan daily zone-ka iyo 4 hour zone-ka soo calaamadso 1 hour zone-ka wax muhiim ah bilaaye ama labadaas ugu muhiimsan labada mar walba inaan soo calaamadsataa marka zone-ka 4 hour zone-kana waxa weeye ujeedaan halka waxa weeye kan waa daily zone sidoo kale halkan waa maxay wuxuu noqonayaa 4 hour zone halkan marka waxaa la jabiyay double top ka qaab noocyada lagu jabiyay qaab correction lagu jabiyay intaas fiican u sii fiirisid marka waxa macquulka waa maxay macquulka waxa weeye in ma garanaysaa 1 hour ku kala tago maadaama aan baatankaasi qurux badan loo arkay marka 4 hour zone-ku waa double top-ka weeye marka suuqu maadaama double top-ka uu jabiyay waa inuu dib soo jabiyaa kadibna waxa weeye zone-ka double top-ka erayadan waxa weeye uu mar labaad soo cunaa marka suuqu hadduu erayada mar labaad soo cuno testiga waa ka qaadan karnaa tan lacagtana kolka JPY testiga ka sugo insha Allah hadduu ilaahay haddii korsiga socota iska daaya haddii kale meesha la soo jabiyo testiga ka qaata insha Allah guys aad baan idin salaamayaa insha Allah video waan ku dheereeyay waxaan rajeynayaa insha Allah inaan lacag oo dhan ka wada faa'iideystaan
channelkana guys ha ilaawinina subscribe saara insha Allah casharka aan isla caawa rabo inaan diyaariyo waa scalping strategy waxaan rajeynayaa inaan waxa weeye isla caawa soo gasho ama beris wax hadduu lahaydmo guys waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iidaystaan hadduu lahaydmo fursadaha asbuucan qof walbana faa'iido la taaban kara ka samaysid aad iyo aad baan idin salaamayaa guys channelka waxa weeye subscribe share insha Allah asxaabtaada la wadaag aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh